gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay kormeer ku tageen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose halka ay dhawaantan la wareegeen ciidamada ka tirsan kuwa kumaandooska Soomaaliya. kormeerka gudoomiyaha ayaa waxa ku weynayay wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka iyo xildhibaan Nuur Sidow oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada ee ku sugan deegaanka Bariire iyaga oo warbixin ka siiyay xaaladda Bariire waxa uu uga mahadnaqay sida ay u xaqiijiyeen ammaanka deegaankaasi. waxaan u mahadnaqayaa taliye kabtan Cabdi Cali Raagi iyo ciidankiisa sida ay ugu adkaadeen cadowga al-shabaab ayagoo xaqiijiyay amniga deegaanka Bariire ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa xilligan gacanta ku haya ciidamada sida gaarka u tababaran ee danaba kuwa oo dhowr bilood ka hor kala wareegay ururka al-shabaab. Ibraahim Maxamed Xasan Ibraahim Jamuni bartamaha May gobolka Shabeellaha Hoose.